waxaan beesha caalamka u sheegaynaa oon dowladda federaalka ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka u sheegaynaa wasiirka arrimaha gudaha iyo guddiga doorashadu inay wadaan dhibkii kismaayo laga sheegahayay oo ahaa in la bedelo odayaasha dhaqanka oo la keeno kuwa gacan ku samaysa oo lagu eedeynayay axmed madoobe wasiirka arrimaha gudaha wada ugaas cabdiraxmaan oo ah ugaaskii beesha 135tii guddoomiyahoodii saxiixihii galmudug ugaaskii kaab ahaa inay ku bedelayaan nin aan ugaas ahayn hadda iyagu keeneen aabihiisa nabadoon ahaa awoogiisa nabadoon ahaa awoogiisa ugaas ahaa dadtaas yay soo tixnaayeen saaka qof aana meel aan ugaasna aan ku ogeyn annana haatan ka hor maqal oo wixii aan warba ka hay yaa meesha loo soo tawalay ugaas weey sidii ninkii horeba sheegay anagu waxaan ugaas noo ah cabdiraxmaan xaaji xuseen aabihiis iyo awooyaashiis baan ugaasyada hore ahaan jiray asaga muxuu ahaayay soo xulay federaalka iyo galmudugba doorashadoodii haatanna asagaa u diyaar ah dad aan annaga nagu dal ahayn oo nagu degaan ahayn oo nagu qayb ahayn baana dhibkaas ka dambeeya oo wada ninkaasaa dhibkoo dhan geystay asagaa ka shaqeeyey dadkaasu in cawad anagu nagu degaana maaha nagu dal maaha waa nin reer puntland ah inuu annaga na faragashadaa waa dhibaato waa foolxumo waxay barnaamijkan u sameynayeen dadka inay isku dhiftaan weeye macnahoodu dadka inay awaana horena ayaga isugu dhiftay haddana inay isku dhiftaan bay rabaan waxaan ka cabanaynaa nimankaasi waxa ay soo minguuriyeen iyo wixii soo gudbiyey oo dowladda oo arrintaa ka aqbalay waxaan la arag oo la maqal baan ka cabanaya waxaan ka cabanaya oo u cabanaya madaxweynaha Soomaaliyeed la yiraaho maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan u cabanayaa oo cabashadaas u leeyahay waa yaqaanana waa aqaana madaxweyne labaad in dalka uu ka sameeyay oo cadeeyo oo aan dhageysano ma annaan ogeyn anagu madaxweyne saddex labaad ma annaan ogeyn waxaan doonayaa saxiixa uu sameeyay ninka uu saxiixaha sameeyay marqaatigeedii waxaan haystaa yad ku dhig dadka dila inuu ahaa ugaas cabdiraxmaan xaaji xuseen ugaaska beesha cabdalle haddaba waxgaradka iyo siyaasiyiinta waxay ka cadaynayaan inay sharci darro tahay seexayaasha cusub ayna uga cabanayaan madaxda ugu sareysa dalka ee dowladda federaalka